maalmihii ugu dambeysay ay badatay hadalhaynta ah in wadahadaladii u dhaxeeyay labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya loo bedeli doono dhinaca dhaqanka lagana bedeli doono dhinacii siyaasiyiinta ka wada hadli jiray arrimahaasi ayaa waxa maanta waraysi gaar ah oo uu siinayay TV-ga Universal Sultan Yusuf Xiire oo ah afayeenka dhaqanka Soomaaliland uu sheegay inay soo dhaweynayaan in wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay loo bedelo dhinaca dhaqanka afayeenka dhaqanka Soomaaliland Sultan Yusuf Xiire oo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ahaa hadaladiisii waxaan u aragnaa anagu haddaan madax dhaqameedka iyo culimada uqaasha salaadiinta boqorada iyo ogaasyada iyo dhammaan golaha dhaqanka anagu waxaan u aragnaa inaanu geli karno waanaanu soo dhaweynaynaa waana waxaana soo gaadhay xilligaanu soo geli lahayn arrinta waxaan u aragnaa inaanu anagu geli karno xusbiyada amba siyaasiyiinta ka hadlayana talada dalku talada qarankani waa loo dhintay dhibaato badan baa ka soo dhacday waa loo soo naafoobay dalkani cid gaara taladeedu ma haftuumna mana laha cid gaari talada dalkani dhaqan siyaasi axsaab culimo cuqaal bulshada arrimaha bulshada way u siman yihiin taladana way wada leeyihiin taladuna tala 4 nin iyo 5 nin iyo 6 nin ka godan maaha masiirka dalku inta uu ka fogyahay marka waxaan leenahay anagu waanu soo dhaweynaynaa taladana waxbaanu ku leenahay culimadu waxbay ku leedahay dhaqanku waxbuu ku leeyahay odayaashu waxbay ku leeyihiin arrimaha bulshadu amba ururada bulshada qarankan waxbay ku leeyihiin mujaahidiintu waxbay ku leeyihiin dalkan waa dal taladiisa iyo dhimgeeda la wada leeyahay ka waxaan leenahay niman kale dhaqanku ma soo geli karo waxaan leenahay idinkaa doorkiinii gabay 24 sannadood baa laydinka sugaya ictiraaf oo dalkan masiirkan iyo nidaamkan inaad badka soo dhigtaan marka inaanu soo faragelin xaq baan u leenahay waxa la huurinayo ee la isku haysto ee soo dhacayn inaanu aragno oo badka la soo dhigo oo salaadiinta iyo cuqaasha iyo culimada iyo waxgaradkuba iyo aqoonyahan iyo golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida iyo golaha dhaqanka iyo golaha culimada iyo golaha odayaasha ee qiimaha leen caaqil iyo sudaamahayna ka qiimo badan qiimo sharafta ku leh dalkan ku leh inay soo farageliyaan xaq bay u leeyihiin inay arkaan xaq bay u leeyihiin Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa